ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ee danab ayaa deegaanada hoos yimaada degmada oo dheegle ku baacsanaya farxadka maleeshiyaadka kooxaha argixisada al-shabaab ee shalay lagala wareegay degmadaasi oo in muddo ay dhibaatooyin ugu geysanayeen dadka masaakiinta ah ciidanka oo ku baraarugsanaa dhagarta kooxda al-shabaab kana sii gaashaantay kahor inta aysan qabsan magaalada ayaa baaritaano ay degmada oo dheegle ka sameeyeen waxa ay miinooyin uga saareen buundada weyn ee dhaxmarta degmada oo ay cadowga doonayeen inay burburiyaan buundada ayaa marin muhiim ah waxay u ahayd dadka degmada degan kuwa xoolo dhaqatada ah iyo dadka beeralayda ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada oo dheegle sida uu sheegay kusimaha taliyaha ahna taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga sareeye gaas cabdi xasan maxamed cadowgu wuxuu isku dayay inuu bariijka markii ciidamadu soo galaan ay qarxiyaan xeelad iyo tab loogu talagalay annagoo isticmaalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku guuleysteen bariijkii oo ay waxba ka dumin waxna yeelin inay gacanta ku dhigaan cadowgiina ka saaraan taas oo guul weyna maxaa yeelay waad ogtihiin qiimaha ay ku fadhiyaan buudooyinku dadka gobolka degan oo beeralayda ah oo xoolalayda ah ee webiga ku nool kuwa doonaya inay ka dumiyaan kuwii ka saaray waxaan u maleynayaa Soomaalida inay abaal ku leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab waxay baad qasab ah ka qaadan jireen dadka shacabka ah ee degan oo dheegle iyo deegaanada hoos yimaada xoolaha nool dalaga ka soo baxa beeraha ayay si xooga shacabka uga qaadan jireen waxaana ay askareyn jireen carruurta yaryar ciidanka xoogga ayaa shacab ka dulqaaday waxaana dhawaan la qorsheynayaa in halkaasi ay ka howlgalaan dhammaan hay'adihii dawladda si adeegyadii bulshada dadkaasi loo gaarsiiyo waxay qaybiyaan daawooyin waxay qaybiyaan raashinka ay haystaan maadaama dadka aan loo ogolayn inay raashin hore u qaataan ciidamada ayaa raashinka iyagana muxuu ahaa ay wataan bay la qaybiyaan daawaday u qaybiyaan waana arki doontaan hay'adaha dawladda oo dawliga ah oo dhan baa taga ma aha ciidamada kaliya ah wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha gudaha maxaa yeelay ciidamada meesha markay qabtaan oo cadowga ka saaraan waxaan noo qorsheysan inaanu dawladda uga tagno oo booliis keento oo degmo ka dhigto oo tuulo ka dhigto oo wasaaradda arrimaha gudaha timaado oo caafimaad la keeno oo iskuulaadka laga dhiso ciidamadu wuxuu uga tagaa meesha booliis iyo ciidamadii tagi lahaa iyo wixii nidaamkii dawliga ahaa looga dhiso maxaa yeelay annagu horaan u sii soconnaa waxaanu sii rabnaa inaanu sii qabsanno oo sii qabanno dhulka ilaa aanu ka xoreyno inta u dambeysa dad hore u soconayaan ciidanka kumaandoosta Soomaaliya ayaa howlgallo lagu ciribtirayo haraadiga kooxaha naflacaariga al-shabaab waxay ka wadaan haatan deegaanada hoos yimaada degmada oo dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya xarunta wasaaradda gaashaandhigga magaalada Muqdisho